sidee loo daaweeyaa dildilaaca ama jeexjeexa yacni cirbaha oo sida hortiina ka arkaysaan qofka cirbaha inay noqdaan ama maqaarka halkan yacni sidan oo kale midabkiisa u ekaado maqaarkan oo aad u adkaado ama dildilaacan faraha badan leh oo yeeshto sidee loo daaweeyaa insha allah waxaan kula wadaagi doonaa sida aad iskaga daaweyn karto cirba dildilaacan adiga oo gurigaada joogo balse marka hore waxaan sharxaynaa waxa sababa qaladaadka haddii aad samayso qayb weyn ka qaadan karo in xaaladan yacni kugu soo laalaabato kow waxa waaye sida hortiina ka arkaysaan haddii qofka yacni taagnaanshihiisa ay badan tahay oo shaqadiisa oo kale ay u badan tahay taagnaan goobaha yacni inta badan qofka inuu taagnaado loo baahan yahay haddii shaqadaada marka istaag ay u badan tahay maalintii oo dhan yacni saacado fara badan yacni aad taagnaanayso xaaladan way kugu imaan kartaa sidoo kale sida hortiina ka arkaysaan haddii qofka yacni nooca kaba oo xiranaya ay yihiin kaba aad u adag yacni taagnaanshahaas uu ku taagan yahay kabahaas adag yacni cilada qayb way ka qaadan karaan sida hortiina ka arkaysaan ama kabaha furan oo kale qofku u badan yahay oo kabaha buudka oosan u badnayn kabahan xiran yacni oosan u badnayn kabaha furan oo kale yacni qayb weyn ay ka qaataan ama kabaha hadday adag yihiin oo kale yani qofka dildilaacan waa isku arki karaa sidoo kale waxyaabaha u fududeyn kara qofka ama u nugleyn kara oo keeni kara waxaa ka mid ah qofka haddii yacni markuu gurigiisa joogo inta badan oosan wax kaba ah xiranin yacni kaba la-aan cagihiisa oo bannaan yacni guriga uu ku socdo hadduu mutuleel yahay ama shamiito yahay ama dhul adag uu yahay haddii uu ku socdo ayadana ciladan waa imaan kartaa sidoo kale dadka sokorta qaba xaaladan way nugul yihiin waa lagu arkaa yacni waa yacni aad ay ugu soo laalaabataa sidoo kale qofka haddii fitamiinkan vitamin B3 uu ku yaryahay sidoo kale xaaladan way timaadaa sidoo kale dadka aad ku cayilan yani ciladan waa lagu arkaa oo risk factorska ama khataraha qofku nugul yahay ay ka mid tahay qofka aad u cayilan oo xaaladan kusoo laalaabato miisaanka inuu dhimo waayo marka sidee loo xaliyaa yani qodobada aan soo sheegnay yani mid ka mid adoo ka dhashto sidee loo daaweeyaa daawadu waxay ku xiran tahay dildilaaca cirbahan wixii sababay oo qofka qodobada aan soo sheegnay aduu fahamsan yahay badanaa meelaha ay ka yimaadaan waa tusaale oo kale qofka haddii taagnaanshihiisa aad u badan tahay yani taagnaanshaha inuu yareeyo waayo haddii uu yareyn karinna kabaha uu xiranayo yacni inay noqdaan kaba jilcan oo kabaha qofka uu xiran hadday jilcan yihiin qofka inta badan dilaaca ma dareemo sidoo kale nooca kabaha xiranaysa sida alka hortiina ka arkaysaan qofka saandalka oo kale kabahan la hadduu xirto inta badan ciladan way ku timaadaa marka qofka kaba buuda oo jilicsan ama wax jilicsan oo kale kabaha oo geliyo meesha cirabta yacni kabta u dhexaysa wax jilicsan geliyo xitaa kabaha hadday adag yihiin laakiin wax jilicsan oo geliyo ayadana khatartan way yaraanaysaa oo qofka dilaacaas way ka baaba'ayaan oo sigsaa inuu xirto kadib wax jilicsan oo geliyo yani saas ayadana qofka uu sameyn sidoo kale qofka haddii yacni ciladiisa ay ka timid yacni markuu guriga joogo inta badan hadduu kaba la-aan oo socdo cilada ay sidaas ku timid asigana qofka yani kaba inuu xirto waayo guriga yani kaba u gaaro guriga uu kula dhex socon kara inuu saas sameeyo waayo haddii cilada ay ka timid yani kaba la-aantaas yani markuu tijaabiyo isbuuc laba isbuuc kadib ayuu ogaan karaa qofka ayadana sidoo kale qofka haddii sokor iyo wax lamid oo qabo inuu sokorta iska control ayaa fiican ciladankaas way ka imaan kartaa sidoo kale vitamin B3 qofka haddii uu ku yaryahay casharo hore ayaan kusoo sharaxnay vitamin B3 markuu yaryahay balse boomaatooyin la mariya ayaa jiro oo maaragta markii cilada dhankaas ka timaado ama si guudba qodobadan kale markii xal loo waayo yani boomaato la mariya ayaa jirto bahal kareem oo kaleeto waaye sida hortiina ka arkaysaan sidoo kale qofka haddii uu cayilan yahay khatartan uu nugul yahay miisaanka inuu iska dhimo waayo yani miisaankaas faraha badan cirbaha kusoo deganaya ayaa maaragta cirbihii u nugleynaya dildilaaca markii aan fahanteen ayaan rajeynaa haddii cilada dhankaada ka timid sababa adiga aa sababta ay ka timid sidaas ayaa loo xaliyaa haddii marka intaas aa xal u raadisay oo istaaga faraha badan aa iska yaraysay ama kabihii adka yani aa ku bedeshay kaba jilicsan ama kabaha furan oo kale aa qaadan jirto buud kaba buud iyo wax lamid aa ku bedeshay sidoo kale maaragta miisaankaada oo badna yani maaragta iska yaraysay ama xanuunka sokorta aa qabto si fiican iskaga kontarasho daawada si sax u qaadatay haddii muddo 2 isbuuci ka badan sidaas aad samaynayso waxyaabahan kala duwan ciladahan kala duwan mid walba aa ka shakisay aa xalisay welina dildilaaci aan tartiib tartiib aan usoo reysanayn oo markaa fiirisa aad dareemayso inuu sidiisi yahay markaas qofka maaragtay wuxuu isticmaalaa ama wuxuu dhakhtarku qoraa oo siiyaa heat bulb balkan loo yaqaan hortiina ka muuqdo noocyo kala duwan ayaa jiro sidan oo kale qofka habeenka markuu jiifanayo u marinaya balse waa muhiim markaa marinayso xitaa in istaaga faraha badan aad iska yarayso
kabaha yani furan yani iska joojiso kaba jilicsan aa qaadato buudkana aa xirato marka inaa fahantay ayaa rajaynayaa marka intaas adoo samaysay baashaan isticmaashay haddii weli maaragta aad dareemayso talooyin kale iyo daawooyin kale ayaa jira la isticmaalo ka tayo badan midda ama ka sarreysa balse intaana inta badan yani qofka ku filan marka inaa fahantay ayaa rajaynaya wixii su-aal aa qabtaan qaybta faalada ama kumatiga noogu reeba asalaamu calaykum